السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan nagala socotaan waa Saydeeq Boolo YouTube-ka. halkaan waxaa ugu tacsiinaynaa walaalaheena Soomaaliyeed oo maanta khasaare aad u weyn soo gaartay annagoona ka xumaanay arrintii dhacda maanta. waxaana garowsanay inaan fadhinino oo soo hadalno oo bulshadeena macnaha shucuurta annaga naga muuqata u soo bandhigno. halkaan waxaa ugu tacsiinaynaa dadkii ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay Ex-Control Afgooye. waxaan leenahay dadkii dhintay Ilaahay u naxariisto. intii dhaawacana Ilaahay waxaa ugu rajaynaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. waxaana codsanaynaa macnaha in dadkii isku gargaaraan maadaama oo qarax uu ahaa mid aad u weyn. waa in macnaha isbitaalada ay tagaan dadku ay dhiig siiyaan walaalahooda maadaama oo qofka oo hadduu dhaawac halis gaaro uu dhiig u baahan yahay. marka maadaama shacabka ay ka wada siman yihiin shucuurta waxaan ka codsan lahaa shacabka in isbitaalada ay tagaan ay buuxiyaan ay dhiig siiyaan walaalahooda Soomaaliyeed maadaama ay wax kale u awoodeen. dadka madaxdana waxaan ka codsanaynaa maadaama dhaawac uu darnaan karo in macnaha gargaar la siiyo dadkaasi waddanka dibaddiisa oo kaleeto oo caafimaadkooda iyo haddii wax laga qabo waayo waddanka gudihiisa. intaasaan ka codsan lahaa. marka waxaan leeyahay intii dhimatay Ilaahay u naxariisto intii dhaawacan Ilaahay ha bogsiiyo. amiin. marka waxaa ila fadhiyo asxaab kaleeto maadaama aan nahay asxaabta YouTube-ka mar dhow ayaan bilownay. waxaan rajaynaynaa macnaha barnaamijyo kale inaan keeno laakiin arrintan maadaama ay tahay tacsi mid loo fadhiisan karo maaha. waa inaan ka wada hadalnaa maadaama aan Soomaali nahay haddana waddankii ma joogno annaga. marka waa inaan shucuurtiina soo muujinaa. halkan waxaa fadhiya Cabdiqadar halkaana Aftaaxa fadhiyo marka ayagana waa idin tacsiin doonaan. marka Cabdi soo dhow insha Allah Ilaahay u naxariisto intii dhimatay intii dhaawacana caafimaad oo rajaynaynaa insha Allah. amiin niyo anigu saaka anigu iska jiifa sariirtayda oo Facebook daawanayo ma subhanallah waxaan arkay uu Soomaali qarax ka dhacay. ma dhacdadaas mar walba waxa uu dhacdaa laakiin bariya dhaxdaasni wuu istaagtay laakiin anu soo kacay subaxdu ma arkin niyo indhaha markaan kala furtay. waa arrin naxdin maadaama ay yihiin dad walaalaheena oo dhibaataysan fahmin annagana de waxa aan ku dhaano insha Allah de haddaan waddankii maanta joognana dhiigu awoodna wax awoodna laga yaabi lahaa laakiin maantana de waxaanu awoodno de waa loo diray waxba laga harmay walaalaheena marka insha Allah waxa kaloo waxa sameynaya waxa weeye oo sameeyay dadka walaalaha islaamka ku sameeyay Soomaalida ah waa dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo leh maxaa dhahaa marin habaabi ayagana waxa codsanana in Ilaahay soo hanuuniyo oo Ilaahay qulubtooda geliyo walaalahooda tuso maamooyin intee hooyaa meesha dadka ay gumaadayaan waa dadkooda waa dhiigu waa walaalaha waxa ay kasbadeen mara saakii soo tooseen way soo shaqo tageen qaar iskuulay soo aadeen waxaan leenahay anagoo isku duwan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahu Soomaaliya oo nabadana tusintaana dhiman waa arkaynaa insha Allah. dhalinyaradana waxaan ka codsanaynaa waddankan idinka iska waddanka dhalinyaradiisa dhisa inaad u hilgantaan oo waddankiina caawisaan oo aad firfircooni muujisaan. madaxdana waxaan ka codsanaynaa kursiga maalinta imaanayseen go'aan baa ku timaadeen iyo ballanqaad been ah. ballanqaadkaas Ilaahay uu kala xisaabtamaya laakiin waxa ay sheegnaa in shacabka waddanka u dhashan inay kala xisaabtami doonaan. dhalinyarada Soomaaliyeed waddankan ayaga iska leh waxaan jeclaan lahaa inay isku duumaadaan oo waddankooda u tashtaan oo wax madax la dhaha iyo oday ka yimid qurbo iyo dibdin baan loo maqlin. haddana mar waxaan kusoo dhaweynayaa walaalkan Cabdifataax Gacdo. waa maasanta Aftaax. horta arrinta maanta dhacdo waxay tahay waa arrin aad u masiibo ah waana wax laga xumaado. halkan kale waxaan ku sii darayaa maadaama horta ardayda ku dhimatay meesha arday oo jaamacadda Banaadir mustaqbalka waddanka oo waddanka intaas wax la soo baray maamooyin u soo halgameen iyagana waxaan ku rajaynaynaa Ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo. dhibteeda waan dareemaynaa. waxaan leenahay waddanka dhalinyaradiisa laga rabaa inay isku duumato. caalamka waddan odayaal dhisaan ma leh. odayaashan iyo qabyaaladan iyo waxaan iyo ma soconayaan mana sii socon doonaan insha Allah. hadda way soo hagaagaysaa qabyaaladii dhalinyaradu iska dhaafeen badankoodii. waxaan rajaynaynaa inay gacmahaas qabsadaan waddankooda waxa ka xun hal mar intay u tashtaan inay waddanka askar qortaan in waddanka mataqaanaa gacanta ay ku dhigaan dhalinyaradu. oday dambe oo 30 ka weyn uusan xil qaban baan rajaynaynaa insha Allah. wayna dhici doontaa. waxaan noo soo gabagabeynaya walaalkayga qaaliga Cabdiqadar insha Allah waxaan wax dhacay waana dhacday nagu dhacday insha Allah sabri iimaan hay naga siiyo. waxaan leenahay mataqaanaa shaqada Soomaaliyeed ay israacdo insha Allah. Soomaali weyn baan rajaynaynaa insha Allah. intii dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacan Ilaahay ku siiyo amiin insha Allah.